السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dadkayga aan jeclahayow haddii ay tahay markii kugu horeysay ee channelkeena aad soo booqato fadlan nagu taageer share like iyo warcelin dhiirigelin ayay noo tahay sagaal dabeecadood oo ay leeyihiin hogaamiyaasha wax soo saarka fiican leh waxaa jira oraahyo badan oo si kooban uga warrama qiimaha ay leedahay hogaaminta fiicani suuragal in ay ka mid tahay kuwa ugu caansan hadalladaasi oraahdii uu lahaa Gandhi ee ahayd ahow adigu isbeddelka aad rabtid inaad ku aragtid dunida haddaba waxa aan ku hayaa sagaal dabeecadood oo haddii aad si joogto ah ugu dhaqantid aad kaga mid noqon karaysid hogaamiyaasha wax soo saarka fiican leh ee dunida jawahay ama haddii aad doonto ha hayn balse waa dabeecado si wacan ku anfici kara number 1 yeelo aragti cad mar kasta aragtida iyo mowqifka cad sida qoraxda oo kale iyo u bandhigista aragtidaada iyo go'aankaaga sida cad cidda uu qoseeyo waxa ay ka yeelaysaa mar kasta naftaada mid kalsooni leh laguna kalsoonaan karo waxana ay aragtida cad ay qayb ka noqoto xaqiijinta aad doonayso hadaf inaad gaadhid sida aad rabtidna ay u qabsoonto shaqada yoolka gaaristiisa ka sokaysa number 2 yeelo nidaam shaqo qabasho nidaamka shaqo qabasho ee fiican waa sifo lagu yaqaan dadka wax ku oolka shaqada aad qabanaysid sida aad u qabanaysid iyo sida ay u kala mudan tahay waa inay ahaadaan mar kasta mid nidaamsan kuna diyaarsan tani waxa ay ka saacidaysaa inaad u qabatid shaqo sida ugu fiican ugu wanaagsan uguna maxsuulka wacan shaqo kasta waad ka dhaa inaad u qabato sida ugu wanaagsan laakiin waa marka aad haysatid qorshe u diyaarsan number 3 yeelo mar kasta adigu mas'uuliyadda mar kasta ha noqon mid taagan gadaasha dhacdooyinka oo qura qaado mar kasta mas'uuliyadda waxa aad qabanaysid kuna soco mas'uuliyadaada go'aanka noloshaada yeelo adigu cidna ha ka yeelin inay go'aan ka gaadho waxa adigu aad u qabanaysid naftaada number 4 samee jimicsi jireed si joogto ah kuwa gaaray meel sare nolosha oo dhan waxa ay u sameeyaan layliga si joogto ah haddii aad aragto hogaamiyaasha dunida ugu waaweyn sida Erdogan iyo Putin waxa ay yaqaaniin micnaha jimicsigu uu leeyahay faa'iidooyin tiro badan oo ay ka mid tahay shaqo qabashada wacan iyo caafimaad qabka jirka ay leedahay dabeecad fiican weeye jimicsigu mar kasta ku layli naftaada inay si nidaamsan oo joogto ah jimicsiga u samayso number 5 samee deganaansho sida uu ugu baahan yahay jirku jimicsi si caafimaadkiisu uu joogto u ahaado ayay naftaaduna ugu baahan tahay raaxo hurdo ku filan iyo samaynta waqtiyada qaar jimicsiga nasniinta ee loo yaqaan yoga si wax soo saarkeedu u bato dhammaanteen waxaynu leenahay hal naf ma jiro qof ay u xareysan tahay naf kayd ah mar kasta aynu ku dadaalno caafimaad qabkeeda iyo u raaxaynteeda si ay u fuliso howlaha aynu uga baahannahay in aynu qabanno inta ay nala joogto dunida number 6 ogow qiimaha waqtiga qabo mar kasta waxa muhiimka ah u yeel waqtigaaga jadwal si aad uga miro dhalisid wanaagiisa waqtigaagu waa qaali ha ku lumin wax aan faa'iido ku lahayn haddii aad rabtid inaad haga fiican noqotid shay walba qiimihiisa u yeel waqtigana sida uu u mudan yahay uga faa'iideey number 7 ahow dhageysta si fiican wax u fahma hagida aad hagaysid dad waxa aan looga maarmaynin inaad lahaatid dabeecadda fiican ee dhageysiga waad ogaanaysaa markii aad si fiican wax u dhageysatid inuu wax qabadkaagu ka fiicnaanayo markii aad kaligaa isdhageysatid si dadka kale fursad aragtiyadooda iyo fikradahooda dhageyso soo jeedintooda kadib go'aanso halka ay saxnaantu ka jidho waa ay ku sahlanaanaysaa inaad hesho warbixino badan oo aanad haynin number 8 ahawkan ugu fiican ee aad ahaan kadib bixi dadaaladaada kuwa ugu awooda badan hana calaa guushu uma timaado kuwa iska fariista ee suga waa daruuri inaad qabato shaqo badan si aad ugu dabaaldegtid guusha qabo wax kasta go'aankaaga iyo xeeladaada adiga oo ku qabanaya hana ahaado mar waliba wanaaga aad doonaysid mid adigu aad ku qabanaysid waxa aad rabtid in la wanaajiyo number 9 u gaariyeel waqti fikirka wanaajinta iyo qabashada waxa aad doonaysid inaad u qabatid sida ugu fiican waxa aan looga maarmaynin marka hore inaad u samaysid waqti aad kaga fakadid kan waa mid ka mid ah khaladaadka ugu badan ee ay hogaamiyaasha siyaasadaha ama kuwa ganacsiga ay ku dhacaan si joogto ah waxa ay qabtaan howl maalmeedyo aanay ka fikirin go'aano aanay hore uga soo baaraan deginna mowqif ayay ka istaagaan weligood kama aanay fikirin xitaa ma dhicin inay riyo ku arkaan waxyaalaha ay qabanayaan waana mid ka mid ah sababaha ay hagayaal badan oo sida kale u fiican wax soo saarkoodu uu yaraado haddaba adigu samee waqti aad kaga fakadid tallaabo kasta halka ku habboon ee aad rabtid inaad dhigto ha qaban shaqo aanad ka soo baaran degin hagee la rabo inuu ishago ayaa tahay fadlan nagu dhiirigeli subscribe iyo share deedna ka hel channelkeena taariikho dad nolosha guula ka gaaray iyo warbixino xiiso leh mahadsan